بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan ku guda jirnaa weli taxanihii aanu kaga warramaynay risaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku jirnaa sanadkii afraad dhammaadkiisa ee sanadkii shanaad bilowgiisa ee nebinimada magaalada maka xilligii muslimiinta la dhibayay oo gaaladu awoodda badnayd wey waxaa la soo gaaray markii ay gaaladu aragtay dacwadii nebiga oo kor u socota calayhi salaatu wasalaam qur-aankii oo xaafadihii laga akhrinayo dadkii nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii meel walba geeyo dadkii u sheegay ilaa waa las yaqaanaa qaraabaa leeyahay xagga cabdullaahi ibnu jaxshi ba aadaya xagga abubakar sidiiq ba aadaya xagga zubayr ibnu cawaam xagga cabdiraxmaan ibnu cawf xagga abu cubeyda xagga sacd ibnu abu waqaas dadkiibay qur-aanka ku dul akhrinayaan dadkuna waa carab ee qur-aanka hore ka fahmayaan iyo macaanida qur-aanka iyo ujeedkiisa hadafkuna waxa uu yahay inay shirkiga ka baxaan marka qur-aankii nebigu akhrinayay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku noqday nimankii dhimbil daba maxaa yeelay qur-aanku waa xaq waa kalaam ilaahay weye shirkigoodii iyo iyagiiba waa dhalaaleen waa adkeysan waayeen marka maxaa yeele meel walba waxaa laga akhrinayaa waman adalu miman yadcuu min duuni illaahi yacni yaa ka baadi badan midka u yeeranaya alla sokadii man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يا كبادي بدن مدك إلهي غيرك ويرنا يمينا أجيبين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يا كبادي بدن مد يرنا يمينا أجيبين دعاديسا بريديسا إلا بريين أن أغين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هذه ضدك لسوء كل مية قيامهنا عدو بيكون نقون دونا إلا سوء عابدين وكو كفرين دونا وإنكر دونا وقال سبحانه وتعالى إلهي بوحو الله دقال يا شركي يعقوشي بني آدم حقا لقارسينيه حقا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون نكي الله معيسى إله كلام معبود كلا ويرته والله قدره حجة ما هيستو وحي عابد يعني الله قدره ينبال ويريه قرآن كبا ويريه محايا لي قرآن كالله وحو النبي سكويري وجاهدهم به جهادا كبيرا قرآن كان كل ضيال المشركين حقه وعده إلا قرآن كإلهي وكيري مركز دنبه سبحانه وتعالى يقول لك الله يا مشركين تي عباده أولئك كالأنعام بل هم أضل كواس حولها أو كلوي بل وبكليتان أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى آيات النبي آخرنا يا صحابة النبي الرميس الرقي دمر نسي آخرنا يا قريش ويقلقلتي شركي قود واقلق شيء أبو طالب أي مادين وحير هذا نقرب أدونا للدين باتهي ويلك ولالك نقرب نبي كوضع عليه الصلاة والسلام هديك لو نسكد عيننا waayahay anaa asaga arki doono irsi qaboob ula hadlay iska noqda bal anaa xalinaya waxba marka odagu dan kama gelin nabiga dacwadiisa uu sii wada calayhi salaatu wasalaam bal waxaa la yidhaha abu aalib wuu gartay xaqnimada risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin de garashada iyo rumaynta iyo raaciddu labay kala yihiin kulligood way garteen nabigu xaq inuu sheegayo laakiin way sii kala daran yihiin abu aalib wuu ku hadlay weliba wuxuu yidhi ولقد وجد بالكتب السابقة كتبتي هروحة لقاها لبيري أن محمدا وزيرا لموسى وابن مريم محمد وزير يهي وكلمت يهي موسى ابن مريم رسوشي هلا فآمنوا بالله وحده إلهي كلي الرمية بيري تذكي والله الله فإن طريق الحق ليس بمظلم وضد حق مقدم ما هم بيري قبل ما كنت رنية السجن ما قادنا إلهي موحدين oo awooyaasha inuu ku kufriyo ayaa ka weynaatay gabay buu ku sheegi doonaa
waana u tegi doonaan dadkii hore alla waaweyn dadka aabihii iyo awowgii iyo abtiyaashii ilma adeeradii iyo mushrikiin soo ahaa hadduu asagu xaqii qiro iyagiina baadi ku qiro oo inay kufaar ahaayeen qiro taasaa dhibaysa dadka qaar waana meesha la rabo go-aanka qofku inuu ka qaato maxaa ninkaas waa tagay wuxuu ahaaba waxba adig kuu bedeli mayso cayna maaha iyo aflagaado inaad tirahdo mushrikiin ba ahayn waan ka beri ahay diintoodii waa mushrikiin dadka ilaahay keyrkii caabudayay kaa-inan man kaan kuu doonaba ha ahaadee quraysh marka waxay bilowday inay sameyso waxa la yidhaahdo barabagandada magaalada gudaheeda marka qurayshtu barabaganday bilowday oo dagaalku waa dagaalkii hadda waxaa socda dacwada dadkii ducafada ahaana inay gacan saaraan dadka ashraafta ah qoys ahaan looga baqayana in barabagando lagu furo waxayna oran jireen laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi lacalakum taglibuun qur-aankana ha dhegaysanina ha ogolaanina walgaw buuq ku fura buuq lacalakum taglibuuna si adinku adkaataan oo uga adkaataan dacwada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay kaloo oran jireen ainaa lataariku aalihatina lishaacirin majnuun ma waxaan uga tegaynaa aalihadeennii aanu weligeena caabudaynay gabyaa waalan maxay suuqa la gelinaya war ah inuu yahay gabyaa oo wuxuu akrinaya shicir yihiin oo waalan yahay waalin waxay ka wadaan wuxuu ka hor yimid dhaqankii soo jireenka awowayaal ee kacbadan muddo weligood lagu dhaqmeeyey oo lagu cibaadeysanayey oo asnaamtan iyo quraysh iyo hawsheedii iyo xajkoodii waxoo dhan waxay ka wada dhigayaan wax isla xaq ah sanamkii iyo kacbadiiba waxay ka wada dhigayaan xaqan isu xaqna ma aha kacbadu waa xaqa beyd ilahi in la tawaafo laakiin sanamku waa baatil dagaalkaasay wadeen ilaa qaarkood ay yidhaahdeen bal huwa saaxirun kadaab waa saaxir beenaala bay dheheen nabiga caleyhi salaatu wasalaam majnuunna way ku sheegeen waalan masxuur isagu sixirana way ku sheegeen waxaasoo dhan waxaa weeye dagaalka dacwiga ah weeye oo marka la rabo dacwadan in afkeeda la qabto hogaankeedu waa nebiga sala allahu caleyhi wasalam marka nebigii baa lagu weerarayaa maxay oraah dadka laga gadayo si aysan nebiga u dhegaysan ay uga arkaan uu yahay nin waa shay ama saaxir ah sala allahu caleyhi wasalam asna qur-aankaasu akrinaya so wuxuu ku jihaadayay qur-aankaasu akrinaya aayadihii hadda soo degay buu akrinaya markiiba saxaabadii baa la tegaya isna meelaha ay joogaan buu ugu tegaya waa ku dul akrinaya caleyhi salaatu wasalaam kadib waxaa soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin udig qaraabadaada kuu dhow jifada adiga kuu dhow udig baa layidhi markaasu wuxuu martiqaad buu gurigiisa ku sameeyey reer bini haashim buu isugu yeeray marka bini haashim waxaa weeye waa nabiga qaraabadiisa ugu sokeysay caleyhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu cabdilmualib ibnu haashim wixii reer bini haashim isugu yeeray waxaa ku jira abulahab oo adeerkiis laxmi ah aabihii la dhashay waxaa kaloo ku jira adeeradiisii kale abu aalib xamza cabaas iyo caruurtay dhalaan iyo maaratay socdo yimid iyo qaraabadii kale iyaguna qaduu u sameeyey markuu martiqaaday buu wuxuu yidhi anigu waxaan idiin ahay buu yidhi adinka yani qof idiin digayo khayr idinla jecel buu yidhi naftayda waxaan la rabaan idinla rabaa waxaan ahay rasuul ilaahay ii soo diray oo xaq ah rumeeya oo raaca dadkii kale intaana hadlin waxaa si edeb darro ah u radiyey raddan qabiixan bay kutubtu qoraan radin foolxun buu radiyey abulahab weliba wuxuu yidhi bani haashim qaraabadii buu la hadlay wuxuu yidhi ninkan hadda arrintuu dhowdahay aan qabano yidhi hadhow waxaa la gaari doonaa buu yidhi quraysh iyo annagu inaanu iska hor imaano quraysh iyo carab oo dhan iskama celin karno ninkana tolkiibuu baabi'inayaa maanta haddaanan qaban meel fog baa laga raadin doonaa hadda aan qabano annagaa dad u xigne waxaa u jawaabay abu aalib wallaahi lanamnacannaha buu yidhi waa difaacaynaa buu yidhi maa baqiinaa intaan nool nahay buu yidhi waa difaacayaa buu yidhi fadhigaa lagu kala tegey cali ibni abi aalib baa yidhi anaa macaak ya muxamed sala allahu alay wasalam oo wiil yara markaas anaa ku garab taagan kugu raacay buu yidhi risaalada ilaahay kuusoo dhibay inta kale wax islaamay ma jiraan laakiin may dhibi jirin sida abulahab dadka u dhiba nebiga sala allahu caleyhi wasalam dacwadii nebiguna way socotay tii qureysheed iyo aflagaadadiina way socotay
waxay dhanka kala bilaabeen Abu Jahl go'aan ku gaaray in dadkii ducafada la laayo la xasuuqo la ciqaabo ilaa ay dib ugu soo laabtaan kufrigii shirkiga ay ka tageen dadkii la ciqaabay waxa ugu caansanaa Sumayya bint Khayaat iyo odageedii Yaasir al-Anasi iyo wiilkeedii Ammar bin Yaasir dadkaas waxay mawaali bani Makhzum yani ay qaraabo yihiin Abu Jahl ibn Makhzum ayaa ay xoreeyay gabadhan oo awal ay adoon u ahaan jirtay marka dadkii ay xoreeyeen wali si dadban bay u sii maamulaan inay islaameen buu maqlay Abu Jahl ka laabtu yiri Maxamed diintiisa ka laabta ma yiraahdaan Ilaahay baan rumaynay Maxamedna waa rasuul Ilaahay alayhi salaatu wasalaam Kacbada barxadeedu keena marka halkaas uu ciqaabay iyadoo Quraysh oo dhan daawanayso maalmo badan buu ciqaabay qorraxdii buu saa u seexinaya habeenkii dhaxan baa ku dhacaysa cid ugu iimaanaysana male waxay dhaqan ay leeyihiin mawaalidoodii way iyaga ciqaabanay oo bidca noqday oo Maxamed ka raacay bay dhih qofka adoonka soo ahaa si la doonaan loola dhaqmi jiray ayaguna waa sabrayeen nabiga maalin soo agmaray calayhi salaatu wasalaam iyagoo xirxiran oo dhibaato ka muuqato ayuu nabigu soo ag istaagay Abu Jahl baa ku jeesjeesay adaa fidneeyay wax u tarbiir adaa fidneeyay wax u tar fidnada wuxuu ka wadaa adaa tawxiid ugu yeeray inay diintoodii shirkiga ay ka baxaan sabra ala Yaasir bir nabigu eray kala ma dhihin adkaysta bir fa inna maw'idakum aljanna ballankiinu waa janno nabigu meesha marxaba uma tari kara calayhi salaatu wasalaam gabadha waxay tiri ashhadu an laa ilaaha illa allah Abu Jahl oo maqlay wa annaka rasuulullah nabiga risaaladiisa qiraysa sallallahu alayhi wasallam Abu Jahl u sheegay soo qaatay budkii uu watay iyo karbada jeedal buu wataa uu garaacaya mar wuu gubaya mar wuu aasaya mar wuu jiidaya mar dhagax buu saaraya soo ciqaab aad u ciqaabay odagii marka horta waa dhintay sidii bud ugu garaacayay oo u garaacayay buu dhintay radiyallahu anhu Yaasir al-Anasi ul buu ku dilay waxaa ku soo haray gabadhii dhulku gegay yani afarta labada gacmood iyo labada lugood baa xargal looga xiray oo dhulka la sidii marka la warayo oo kale maxaa la yiraahdaa haraga oo kale ayaa xargal lagu xiray dhulka markaasuu ku soo foorarsaday Abu Jahl wuxuu yiri Maxamed ku kufri aan ku sii daayay adii wiilkaaga odagii tagi markaasay tiri ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah candhuufi asagana wejiga uga tuftay Sumayya bint Khayaat radiyallahu anha waran buu soo qaatay warankii buu ku muday oo uu ku dilay waxaa soo haray wiilkoodii saa ciqaabtu ku sii socotay muddo kadib wuxuu ku hadlay baa la yiraahdaa eray ay ku sii daayeen gaalada oo nabigu wax ka sheegay calayhi salaatu wasalaam markay soo sii daayeen ayuu nabiga u yimid isagoo si fiican u rafaadkina ka muuqdo rasuulkii allow saasan waan niltu minka yani adaan wax kaa sheegay saasay ugu sii daayeen buu yiri nabigu wuxuu yidhi fa in caaduu facud hadday ku laabtaan mar kale inay ku ciqaabaan adna aniga inaad wax iga sheegto dad ku badbaadaysa yeel waxaana soo degtay aayaddii ilaahay uu ku yidhi sida culamadu tafsiir ay sheegaan ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaan qofkii la khasbay eray lagu khasbay mooye laakiin qalbigiisu iimaanka ku xasilan yahay qalbigiisuu weydiiyey nebigu kayfa kaana qalbuka qalbigaa ka warran buu yidhi mutma'inun biliimaan buu yidhi rasuulkii allow marka waxaa laga doodaa marka culammada laba ugu qaybsameen sida wadaad ninkaas isku fakiyey ma lagu fakan karaa waxaana xoog badan in la yiri maya asagay gaar ku tahay maxaa yeelay haddii lagu wada fakan karo kuwii horeba waa loo fasixi lahaa oo la dilayay ridwaanullaahi calayhim oo odagii iyo xaaskiisiiba ah sabra la yidhi adkaysta marka
waxay gaar u tahay baa la yidhaahdaa Camaar bin Yaasir oo nabigu xataa wuu ilmeeyaa la yidhi nabigu markuu loo sheegay labadii in la dilay isaguna soo rafaaday ilin baa nabiga ka timid baa la yidhi sala allahu calayhi wasalam isaga marka wuu u fasaxay inuu wax ka sheego maxamed ibnu maslama waaga dambe madiine la imaanayo nin gaal al rabo in la soo dilo nin dhib badan oo nabiga ay dhibay muslimiinta yahuudi ahaa saxaabigii loo diray wuxuu rasuulka Allah ima aaminay in wax ka sheega mooyee iga sheeg biir marka si aad u dabto cadowgaas maxamed ibnu maslama kaliya taas loo fasaxay ragii kale la socday habeenkii gaalkaas uu dilayay saxaabiga waa u tagi doonaa gaal yahuudiya dhib badnaa ayagu nabiga waxba kama sheegay la fadhiyaan laakiin asagu nabiga waxbuu ka sheegayaa ninkan carab buu naga hor keenay yani dadkii oo dhan baa isugu kaaya tegey waxa weeye waa kana madaxu u ruxaya laakiin ragga kale ma hadlayaan iyaga looma fasixin nabigana wax ka sheegan sala allahu calayhi wasalam tanna waa sidii oo kale la yidhi Camaar bin Yaasir ayay gaar ku tahay inuu nabiga wax ka sheego haddii mar kale ciqaab lagu soo rogo maadaama labadiisi waali hortiisa lagu dilay oo nabigu markaas isaga uu maartay laakiin cid kale loo fasaxay inay nabiga aflagaadeyso si ay nafteeda uga badbaadisaa ma jirto ilaah oo la aflagaadeeyana warkeeda badaa ilaah inaad caydo naftaada kuma badbaadin kartid inaad sanam u sujuudo ama aad sanam ku tawaafto qabri ama aad ilaahay keyrkii u yeerato ama aad u gowracdo ilaahay keyrkii oo naftaada ku shirki kuma badbaadin kartid xadiis saxiix ayuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo abaadar u dardaarmaya yaa abaadar laa tushrik ilaahay u sharig yeelin wain qutilta haba lagu dilo aw xuriqt ama halagu wain quticta dhe ha lagu googooyo aw xuriqta ama haba lagu gube ilaahay u sharig yeelin manaha ma dhici karto in shirki nafta lagu badbaadiyo iyo kufri waana warka hadda jahamiyadu ay dadka qaar yiraahdaan ilaahay wuxuu ogol yahay adoonku ilaahay keyrkii caabudo sanam u sujuud lagu toogana iska sujuud ilaahay wax ka sheegdo waa ka sheegi kartaa ilaahay waa caayi kartaa saa ku badbaado waxaas oo dhan waxba kama jiraan mana aha kaas macnaha waxyaabihii lagu badbaadayey taqiyada qur-aanka lagu sheegay ilaa an tattaquu minhum tuqaat ama man ukraha waqalbuhu mutmainun biliimaan waa waxyaaba markaad xorta aad tahay haddaad ku hadasho ay gaalnimo tahay sida muslimiinta inaad aflagaadayso gaaladana ammaanto adoon cidina kugu khasbayn haddaad yeesho maxay noqonaysaa waa kufri gaaladii ammaanto iyaga weyneyso muslimiintana ihaaneyso laakiin markii iyaga laga baqayo lagu dhex jiro oo taqiyada la sameynayo muslimiinta wax laga sheegaya gaaladan la ammaanaya taqiya la yidhaha isqarin adoo go-aankaaga laakiin ka bedelanaya sidaas oo qalbiga wax kale ku haysta hadday iyagu dabaaldegayaan waa lala dabaaldegaya adoo lacnadaya qalbiga ka lacnadaya hadday iyagu murugeysan yihiin rag waaweyn oo madaxdooda laga laayay oo adiga ma farxi haddaa faraxdo oo ku dilayaan maxaa sameynay waa la murugoonay adoo qalbiga ka faraxsan taqiya taasaa la yidhaahdaa marka dhibkaasaa muslimiintii loo geystay waxaa kaloo dadka la ciqaabay ka mid ahaa sanadkaas cabdullaahi ibnu fuhayra wiil dhallinyaraha marka dambe abubakar baa iibiyey oo ka iibiyey gaaladii ciqaabaysa waxaa ka mid ahaa khubaab ibnu arth oo reer bani cadiy intay soo xireen kor bay intay ka soo laalaadiyeen weliba si dadaba u xireen sida sariirtoo kale loo xiro dhabarkiisa hoostiisa dab laga shiday dhulka dab baa laga shiday isna kor baa saa loo gegay dabkiibaa yani hoostiisa ka shidan inuu ka laabtaa la rabaa diin Muhammad calayhi salaatu wasalaam islaamka inuu ka laabto isna waa diidaya geeri buu ogolyahay arrintaana nabiga dadka kula dardaarmay oo mar ay u yimaadeen aad loo rafaadiyey oo nabiga kacbada soo ag fadhiya u yimaadeen bayna rasuulka allow ilaahay maad gargaar noo weydiisay rafaadnay oo silicnay saxariirnay bay yiraahdeen markaasuu nabigu wuxuu yiri ummadii idinka horeeyay qaar baa inta dhulka loo qodo oo madaxa la soo saaro madaxda banaanka la keeno yaa minshaar madaxa bartankiisa laga saari jiray la kala goyn jiray laba nin baa soo qabanaysa minshaar waa la yaqaan baashan ilkaha leh madaxa bartankiisa la kala jaraya xadiidkaas saxiixayn ku yaala diintoodana kamaan laaban jirin ama bir kulul baa la soo qaadanaya oo si shanlada oo kala bir ah markaasaa hilibka lafta laga soo fujinaya saa loo gelinaya laga soo fujinaya diintooda kamaan laaban jirin bi calayhi salaatu wasalaam هل صبروا يجري إلهي وأوهي لندونا دي حقنا نعم وضل أقل عبد الدين عقابته امتحان ويكن إلهي ما نقول لك علي إلهي ما القرآن كأول شيء يدك مؤمنين تأمر والبين لا امتحان من دونه مركز قارنا صبر يان قارنا كرشيء يان صبر يان قارنا لوميا
حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلهي بس هذا أورانيه كورون تشيغن الله وموجي marka imtixaanka la keenay beenaalayaashiina Ilaahay waa muujiyay. marka waxa kale oo la ciqaabay isna marka ninkii la oran jiray Khabaab ibn Arth way ka tageen dabka hoostiisa ka shideen isagana soo xireen wuxuu yiri dabkii waxa damiyay dhabarkayga dhacaankii ka soo baxay buu yiri. waxaan dhacaanku markuu gubto oo dhalaalo markii hore hariga dhalaalayo daadanaya waxa ku xigay hilib muruq yani hilibkii iyo baruurtii wixii dhabarka saaraa ayaa daadan markay way de'een markay de'een bay dabkii damiyeen. amrigiisu waa dheeraa saxaabigaas oo sidaas oo ilmo ku sii dhala mustaqbalka oo dadkii waagi dambe nabiga la jihaad galay ku jiray bal nabiga nolol buu uga dambeeyay baa la yiraahdaa. Khabaab ibn Arth Umar ibn al-Khattab markuu doonayay sidii loo ciqaabi jiray ummadii muslimiinta xilligii Makka ya xilligii Umar intuu dadka u yeero dhigi jiray ya Khabaab maanta dhabarkaaga na tusbiir aan uu oran jiray aan xasuusano sidii dadka loo galay dhabarkiisu ilkii aad moodo feerihiisa u saaran yihiin muuqdaan banaanka yaalaan la hilibkii dabool lahaa dhan baa daatay saas u noolaan jiray isagoo ah markaasuu dhabarka u feedi jiray saxaabadii iyo taabiciintii iyo meesha lagu ooyi jiray qof walba wuxuu xasuusan jiray sidii islaamkan dhibkii loo soo maray iyo rafaadintii iyo siricii qurayshtu ay baday dadkii nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam. markaas saxaabada qaar ka mid ah nabiga u yimaadeen waxay dhaheen rasuulka Allah noo ogolow inaanu hijroono oo idmay waliba inay aadaan dhanka xabashida waliba waxa la yiraahdaa nabigu inuu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaa jooga bir halka boqor aan agtiisa dadka lagu dulmin dhulka xabashida aada. marka saxaaba baxday dhowr qof ah dhowr iyo 10 baa la yiraahdaa ayaa baxay rag iyo dumar isugu jira oo ku jira Uthman ibn Affan ayaa ka baxay magaalada Makka markii loo adkeysan waayay silcintii iyo rafaadintii Quraysheed dadka muslimiinta ay rafaadinayeen. dacwadii nabiguna waa socotay dagaalkii u dhaxeeyay nabiga iyo mushrikiintuna waa socday. adeerkiisa mar labaad u yimaadeen Abu Talib waxay yiraahdeen adigu anaga nala diin baad ama wiilka walaalka waad naga qabanaysaa ama waad dilaynaa bay dhaheen. markii hore codsi bay ahayd markan go'aan bay u keeneen. odagii wuxuu u baqay nabiga calayhi salaatu wasalaam asaguna waa hogaamiyaha banu Hashim iyo banu Muttalib waa sayid macnaha hogaamiye beeleed ah beesha hogaamiye qof ahaana adag laakiin Ilaahay baan qadarin inuu islaamo. Abu Talib nabigu u cidiray waa u yeeray wuxuu yiri qoomkaagu waxay kugu dhibsanayaan ka daa. markaasuu yiri adeer kutubta waxay kala qoraan laba hadal oo kala duwan isku dhow wallahi la wadacu shamsa ala yani fi yamini wal qamara fi yasari yani haday midigta ii saaraan qoraxda bidixdana ay dayaxa ii saaraan inaan ka hara arintan dacwadan joojiyo ma yeelayo ilaa Ilaahay daahiriyo sara marto ama la igu dilo biir. go'aankiisa markuu arkay waliba nabigu fadhigu ka istaagay nabiga ilin baa soo buuxsay wuxuu u dareemay adeerkii markaan inuu ka insixaabayo difaaciisa ka harayo. markaasuu odagii baa yiri fariiso wuu fariistay wallahi lan yasilu bijam'ihim biir lan yasilu ilayka bijam'ihim gabaygaasuu tiri كل هذا سوق هاتيان كما تابان كلا كما سو غاري كلام بير حتى وسد في التراب دفينا الا عيد الايغلير عيد الابركيو انيو دنتي فقل ما احببت وقر بذاك عيونا كو هذا الوحى جعشاي قلبيغا اندهاغنا كو قبوبان ودعوتني وانت ناصحي انا واد يرتبير اديغو ولي اي نصيحينيه وعرضتني دينا قد عرفت أنها خير الأديان البرية دينا وحادين صوبا نكتي دين أن قرتي أن قري ديمها مخلوقها يستطيع في عناد في رسو قري وعرضتني وحادين صوبا نكتي دين قد عرفت أن قرتي أنها دين تني خير الأديان البرية دينا مخلوق أن ديمها يستطيع في عناد لولا مخافة المسبة الآباء هدانا كبغين بيري أوياشي هورينا نعايو يعني هاشم يا عبد المطلب يا قصي كفار مشركين أهاينا لو هدانا كبغين لوجدتني سمحا بذاك مبينا وهذه هيري لهيت
anigoo arrintaa u furfuran oo si fudud macaan kuu raacay laakiin awooyaalnan gaalaysiiyo marka inuu awoowo diintoodii baatil u yaqaano kufri ku tilmaama waa khasab ma dhici karta inaad mushrikii islaam ka dhigto adigana aad muslim tahay waa beentaas maxaa odagaas reebay hadduu dadkii hore dhihi karo xaq bay ku sugnaayeen rajay leeyihiin janno galaan anna xaq baan ahay ilaahay baana waxidayaa inaysan isqaadanayn buu ogyahay waa in uu ku kufriyaa diintii awooyaashii hore oo uu rumeeyaa diinta xaqa ee tawxiidka ah ka beri noqdaa mushrikiintii mana u yeelin laakiin wuxuu go'aansaday inuu wiilka uu adeerka u yahay uu soo koriyey oo uu jeclaa uu difaaco wax walba ha ku qaadatee halkaasay inoo joogaysaa insha allahu tacaala abu aalib oo guntiga u xirtay difaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh oo tallaabo kastoo ay qaadi karaan oo ay ku dhibi karaan nabiga mu'miniinta qaadaya si ay dacwada u hor istaagaan wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam